yoga iswaadan salaamay dhammaantiin oo meel walba caalamka joogtaan waa anigoo walaalkeen Amiin Xasan ah idin leh ku soo dhawaada mar kale iyo YouTube channel-kayga haddaad ku cusub tahayna waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saartid aadan ka hilmaamin inaad taawatid gambaleelka saad ula socotid muuqaalada soo socda. waa maxay sababta dadka qalbiga noga jibiyaan? waa maxay sababta dadka qalbiga noga dhaawacaan? waa maxay sababta dadka naga fogaadaan amaba naga tagaan? su'aalahaas ayaa maanta waxaan isku daynaynaa inaan muuqaalkan gudihiisa aan ka jawaabo. ugu horeen, waa maxay sababta dadka qalbiga noga jibiyaan? dadka qalbiga waxay noga jibiyaan oo kaliya waxay tahay waayo qalbiga ilbaab laga soo galayo oo kaliya ayuu haystaa. markii qofka qalbigaaga soo galo ama baad u fasaxdid inuu qalbigaaga ku dhex noolaado, marka ilbaab ugu baxo malahan. marka hal mar gudaha haduu soo galo ilbaabkaas isla markii disappear ayuu noqonayaa, waanaya. marka markuu rabo inuu ka baxo muxuu sameeyaa talo? waayo ilbaabka qofka haduu ilbaab waayo wuxuu raadinayaa daaqad uu ka baxo. daaqad haduu waayo wuxuu raadinayaa inuu darbiga jibiyo soo meeshaas uga baxo. marka saa awgeed qofka aad qalbigaaga aad u fasaxday markuu rabo inuu ka baxo, saa hore idin sheegay, qalbiga ilbaabku uu soo gali karaa qofka, laakiin ka bixitaanka ilbaab laga baxayo ma lahan. saa awgeed ayuu qalbigaaga u jibinayaa. midda labaad haddaan fiirino waxay tahay waa maxay sababta dadka qalbiga noga dhaawacaan? moogta horta qof walbo inuusan qalbigaaga dhaawaci karin. waxa oo kaliya qalbigaaga dhaawaci karo waa dadka aad qaas ah ka dhigatay oo aad soo dhaweysatay oo walaalo aad ka dhigatay oo asxaab aad ka dhigatay oo aad ka dhigatay qof aad nolosha aad la wadaagi kartid. marka tusaale ahaan haddii idin siiyo, haddii qof dhaho aadan aqoon u lahayn qofkaas daneysto waaye, iyo haddii qof ku dhaho oo wax walba aad u sameysid si asiga aad farax gelisid ama ayada aad farax gelisid, hadduu ku dhaho qofkaas daneysto waaye, labada xanuun way kala daran yihiin. waxaa xanuun daran midka oo qofka ku dhaho oo saas ku dhaho daneysto ayaa tahay. sababta ah ereygii waa ereygii, laakiin waxay kala tahay oo kaliya yaa kala dhexe. mid waxaa dhexe qof aadan aqoon u lahaynin, taas shido iyo murugo korkaaga ma ka saarno. laakiin midka kale waa qofka aad isleedahay qofkan nolol ayaad wadaagi kartaa, qofkan saaxiibkaaga kuu dhowaa, qofkan walaalkaaga kuu dhowaa ayaa wuxuu ku leeyahay daneysta ayaa tahay. marka saa awgeed qalbigaaga waxaa dhaawaci kara oo kaliya waa dadka adiga aad soo dhaweysatay oo qalbigaaga aad ku dhex nooleysay. haddana waxaan fiirinaynaa waa maxay sababta dadka ay naga tagaan amaba ay naga fogaadaan. horta waxaad arkaysaa qof ayaad wax walba aad u sameysaa. horta waxaad arkaysaa qof ayaa waxa u sameynaysaa wax walba uu rabo ama wax walba uu farxad geliyo soo uu kula joogaado amaba in aad asiga farxad gelisid soo asiga kaaga tagin. laakiin ugu dambeyntii maxaa dhaca? wuu ka tagayaa. marka waxaan rabnaa inaan ogaado sababta uu ka fogaanayo qofka waa maxay. sababta ayaan laba u kala qaadaynaa, saddex ayaan kala qaadaynaa. midda ugu horeysa waxay tahay qofka waa qof dan leh, wuxuu ku imaanayaa dan ayuu leeyahay, marka wuxuu rabaa danta uu leeyahay inuu gaaro. markaas laakiin dantaas ma gaari karo, laaziman waa inuu kuu soo dhawaadaa, waa inuu noqdaa qof qaas ah agtaada inuu ka noqdaa, waa inuu noqdaa qof aadan ka maarmi karin. famno. marka anyways uu ku imaanaya wax walba ayuu isku daynaya soo uu qaas u noqon lahaa oo agtaada qaas ka noqon lahaa. markii oo dantii oo gaaro kadib waa walba waa qof dan meesha u jooga, dantiisa markuu gaaro kadib uu ka tagaya. qofka labaadna waa sidoo kale waa qof dan meesha ku imaaday, asigana waxa isku daynaya wax walba soo uu ku soo dhawaan lahaa. laakiin midda ugu horeysa waxaan dhahnay dantiisa markuu ka gaaro uu ka tagaya. laakiin kan dantii uu ku imaaday uu gaari waaye ama wuxuu ka rabay uu ka heli waaye, marka wuxuu is leeyahay meeshan faa'iido ma lahan, waayo walba danta aad imaaday waad heli weysay, marka uu ka tagaya. saa awgeed asigana uu ka tagaya, waayo qofkii dan lahaa dantiisa markuu gaaro uu ka tagaya. qofkii dan lahaana oo dantiisa hadduu waayo sidoo kale asigana uu ka tagaya. sababta saddexaad amaba sababta ugu dambeyso waa maxay sababta dadka naga fogaadaan amaba naga tagaan? waxaa laga yaabaa qofka inuu ka tago
asiga marka horeyso in markuu noloshaada kusoo biirayo wuxuu kusoo biirayaa inuu nolol kula wadaago, inuu nolol kula qaato, inuu cumrigiisa oo idil inuu adiga kula noolaada. laakiin waxaa sababa inuu ka tago wax kale ma ahan, adiga ayaa sabab u noqon kara inuu ka fogaado amaba inuu ka tago. tusaale ahaan haddii idin siiyo, gabar ayaa wiil jeclaatay, okay, waxayna rabtaa inay mustaqbal la wadaagto, inay caruur u dhasho, marka aday inay weligood isla noolaadaan. laakiin wiilka asagana dabeecadiisu waxay tahay wuxuu rabaa inuu 2 kale naag guursado ama 3 kale naag inuu guursado, laakiin ayadana taas uma dul qaadan karto. famno marka anyways waa isku daysa, waxay dhahaysaa yani wax walba aad iga rabtid aniga ayaad helaysaa, naag kale ha iga daba keenin ama naag kale ha iga fiirinin. laakiin asagana laaziman ama shart waxa ku ah inuu guursado, asagana yani nafsadiisa wuxuu qasab ku dhigay inuu mid kale keeno. marka meeshan gabadha way rabtaa inay wiilka la noolaato, laakiin wiilka ayaa ku qasbaya inay gabadha ka fogaato. soo marmarka qaar anaga ayaa dadka ku qasbeeno inay naga fogaadaan, taas ayaa qasbi kara inuu qofka naga fogaado amaba inuu naga dheeraado, yani anaga ayaa sabab u noqon kara midda saddexaad inna laga tago. marka waa kuwaay sababta waa ee dadka qalbiga naga jibiyaan, waa maxay sababta dadka qalbiga naga dhaawacaan, iyo waa maxay sababta dadka naga fogaadaan. inta aan ku wada kulmi doono muuqaalka loo sidaan ah, waxaa idinka tagayaa sida iyo nabadgelyo.